qarba walaacsan waqtiga aad joogto maanta hadduu adigu wanaaday dadweynaha kugu wareegsan inbaa warwartooya balsan bulshada qarba walaacsan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دقيستيال ملك استواد نقد دقيسان إسان يسكت استواد نو دقيسان إسان با هلكن waa madasha lixdanka dhaxwal lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaalida waxa caawa madasha lixdanka marti inoogu ah Safiya Yaasiin Faarax waa aqoon-yahanad Soomaaliyeed oo khadka telefoonka kaga jirta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waa wadanka Mareykanka. Safiya horiyo waran ku soo dhawow madasha lixdanka. walaal waad mahadsan tahay waan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku jirta leenka aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan caawa ka qayb galo habeenkii iigu horreysay mahadsanid walaal. waad mahadsan tahay soo dhaweynta ka bacdi waxaan doonaynaa Safiya madasha lixdanka halkan la yiraahdaa dhaxba waxaa lagu qaadaa dhiga siyaasadaha Soomaalida kolba waxa cusub waraysiyaal la qaadaa live ah kuwa madaxda aqoon-yahaniinta siyaasiyiinta iyo dadyo kala duwan oo badan oo noocaas waxaa ku xidhan dadyo Soomaaliyeed oo kumanaan kun ah oo adduunka dacaladiisa ku kala nool qaaradaha adduunka oo dhan oo Soomaaliyana ay ka mid tahay waxaa imika si toos ku dhageysanaya dad kun qof ku dhow waxaana ku dhageysan doonaa marka waraysigu meediyaha galo kumanaan kun oo qof marka waxaynu imika wajahaynaa dhinacii su-aalaha. Safiya ugu horreyn adoo soo koobaya waxaad nooga warantaa Safiya waa qof ma educational background iyo work experience kaaga CV-gaaga dadka uga sheekay marka hore Safiya qofta ay tahay si ay ula sanqaadaan. walaal aad baa u mahadsan tahay mar kale Safiya waxaan anigu deganahay hadda Minnesota waxaan joogay muddo hadda adiga almost 24 sano ku noolaa wadankan Mareykanka waxyaabaha aan bartay waxaa kamid ahaa waxaan haystaa psychology oo bachelorkayga ah iyo masterskayga oo ah ama master's degree oo waxay yiraahdaan community development and international development it's kind of overlapping marka waxyaabaha aan kasoo shaqeeyay waxaa kamid ah of course America waan ka shaqeeyay muddo badan management iyo waxaan sameyn jiray healthcare company u sameynaya Minnesota ku yaala kadibna waxaan aaday Soomaaliya oo aan thesis projectigayga actually waxaan kusoo sameeyay masterska Soomaaliya muqdisho kusoo sameeyay sanadkii 2012 ilaa 2013 marka waxyaabaha actually Soomaaliya aan ugu noqday u xiiseynayo waxa igeliyay waxa kamid ah waqtigii aan Soomaaliya geliyay aan ku noqday ama hadii noqolid markaan waxbarashadeeda thesis ka shaqeynay oo aan dhalinyaro la shaqeynay ama dee wadankan u kuur galay sidiisa guud marka waxyaabaha aan ka projectiga markaan dhameystay kadib muqdisho waxa aan ka shaqeeyay haddana UN-tan waxaan ka helay contract aan la shaqeynayay barnaamijkan hadda loogu yeero New Deal-ka oo gabagabada oo Soomaaliya dib u dhiskeeda loogu talagalay oo 2013 Brussels lagu launch gareeyay ama lagu bilaabay lagu daafuray oo dawladii hore Xasan Sheekh uu hogaaminayay barnaamijkaas waxa la furay xilligeedii marka barnaamijkaas aan la shaqeynayay oo aan contract ka helay coordinator baanan ka ahaa donorskan la shaqeyn jiray ama beesha caalamka wuxuu u yaqaanaan wadanka maalgelinta ku sameeya iyo dawladda federaalka ayaan la shaqeynayay labadaba oo u dhaxeeyay marka arrimahaas waxay ii sahleen horta background-kayga waa intaas in general laakiin waxyaabaha geliyay information badan aan ku ogaaday oo wadanka xoogaa inaan ka hadli karo igelisay waxaasa ugu weyn. aad baad umahadsantahay si wacan baan u garanay marka waa xagga shaqadaade xilliima ayaad ka shaqeynaysay intee muddo la-eg ayaad waxaad ka ahayd xiriiriye ama coordinator nimankan international donorska iyo dawladda Soomaaliya aad xiriiriye u ahayd muddo intee la-eg ba arrinkaasi xilli meesha ahayd horta waxay ahayd waan ka waqtigaas waan idin sheegay waqti wuxuu ahaa adiga 2014 ilaa 2015 laakiin ka horna waan joogay wadanka 20 xataa bilowgii 2014 waxaan ka shaqeeyay consultancy iyo waxyaabahaas aan ku shaqeynay marmar laakiin muhiimadda ugu weyn waxay ahayd intaas sanadkaas aan la shaqeynayay 2014 ilaa 2015 waan ka soo laabtay wadanka oo waxyaabaha uga soo laabtayna waxaa kamid ahaa
go-aan aan gaaray oo ahaa maaragtay xaaladda dalka markaan arkay ilaan meeshaan ka shaqeynayo waxaan ogaan karay information badan markaad donorska la shaqeynaysid iyo dawladdii meesha ugu sarreysa aad la shaqeynaysid wax badan baad ogaan kartaa ma garatay marka waxyaabaha aan is oran karo indhahay kuu fureen ya bay kamid ahayd shaqadaas 1 year wanaagsan baan u garanay Safiya aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal nagala socotaan weliba madasha lixdanka oo dhaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaalida waxaan sidaan horeba u sheegnay caawa martii noogu ah Safiya Yaasiin Faarax oo aqoon-yahanad Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota waa wadanka Mareykanka Safiya su'aasha kale ku weydiinaya waxa weeye maanta waxaad qabatay shir jaraa'id xagga social media ah oo aad kaga hadashay arrimo aad u fara badan oo siyaasadaha Soomaaliya arrimaha federalismka shirarkii maamul goboleedyada dekedahan iyo investmentkan arrimaha laga hadlo arrimo aad u salbalaaran oo very complicated ah maxaa kuu kalifay shirka jaraa'id maanta qabatay walaal horta barnaamijyadan way socdeen oo videoga aan sameynayay ama maaragtay publicationka aan dadka usoo gudbinayay oo aniga aan ka hadlayay way socdeen waayadan oo dhan horta xilligii horaan bilaabay sidaan waddanka uga soo noqdaba horta waan shaqeynaya activistaan ahaa oo go-aankii aan ku gaarayba kamid ahayd markaan kasoo laabanayo waddanka oon America kusoo laabanayo inaanan aamusin inaan wixii aan hadlay oo khaladaadkaan waddanka kusoo arkay inaan ka hadlo si isbedel loo helo alxamdulillah horta dawladdii isbedel xaggeeda waa laga helay federaalka oo waa ku guuleysanay intaanay gashay dadaalka badan waxyaabaha marka maanta aan ka hadlayo waa wax chain soo socday waayo silsilado isku xiran oo soo socday waayo oo ay ugu dambeysay dekadahan xaaladeeda waagaas waxaan ka hadli jiray 4.5kii waxaan ahaa qoftii abaabushay 4.5ka in laga dagaalamo oo qurbaha ka dagaalamaysaan ahaa oo runtii outreachka badan iyo awarenesska badan sameynaysay waa ogeedeenoo dee meeshii ku dambeysay waad ogeedeen oo 4.5kii kumanaan guuleysan in laga gudbo marka federalismkan iyo waxaan iyo waxyaabaha aan ka hadlayay maantay waxa aan aada ugu soo fahmay waxay ahayd Soomaaliya intaan jiray waxaad ogtihiin Puntland meelaha intaan ka shaqeynayay waayo waddanka oo dhan ka shaqeynayo Puntland aan tegi jiray waxaan tegi jiray gobolada kale bay dhawaan tegi Kismaayo waan arkay weliba Kismaayo markii Jubbaland la dhisaayo waan tegi maalintii la caleema saarayo calanka la saarayo waxaas oo dhan marka xamar baan u badnaa laakiin waddanka waxay isiisay fikrad fiican ay iga siisay waxa ka socda federaalka marka haddii aan ku hormaro xaggeeda federaalkii annaga sidaan moodeynay iyo sida documentiga ku qoran iyo dastuurka iyo waxa hadda socda isma laha waan ka hadlay videoga waxyaabaha aan ka hadlayay kamid ahayd waxa hadda socda federaal lama oran karo waxaana loo oran karin sababtu waxay tahay sharcigiyaa waxaa jebinaya maamul goboleedyadii oo ay weliba ugu horeysa Puntland oo ku doodi jirtay oo aan ku naqaanay inay yihiin kuwa ilaalin doona ama u dooda inaan federaalka la jebinin baa maanta waxay hoggaan u tahay hogaamiyaha jooga shacabka horta ma eedeyn karo iyagu waa dad la haysto weeye oo kale waan iraahdaa ajiladaha aan videoyada aan ka hadlayaan ku sheegay hore uga sheegay shacabku waa dad la haysto baarlamaankana xor umay aha oo baarlamaankii iyaga matalayna xor ma aha oo isagana waa la laalushaa marka meesha waxaa ka socda dawlad aan lahayn checks and balances dawlad aan maaragtay baarlamaanka waxaa loogu talagalay dawladda inuu la xisaabtamo xukuumadda inuu la xisaabtamo xukuumad aan lala xisaabtami karinin waxa ay noqotay meesha madaxweynuhu wuxuu noqday nin wax alla wuxuu doono sameeya siduu doono ugu galgasho Puntland marka Puntland waan ku ogeyn sida ay xaaladeeda ahayd iyo sida uu galgashay sida wuxuu doono u sameeyay hadda wuxuu u gudbay federaalka inuu sidoo kale u galgasho oo wadankii ku galgasho marka aan leeyahay ku galgasho waxaan uga jeedaa federaalkii ayuu wuxuu bilaabayaa carqaladeynteedii dawladdii ayuu federaalka ahayd ayuu madaxweynihii Puntland wuxuu ku noqonayaa carqalad waxaa tusaale u ah horta arrintan dekedaha waxay soo bilaabatay Xasan Sheekh iyo Cumar Cabdishiid intay joogeen doorashada intayna dhicin laakiin saas ayna gaarin Safiya raliga haw ka tujiye su'aalaynu bedelaynaa jawaabaha waxaa isku daydaa inaad soo koobto inta arrimaha dekedaha aynan u gudbin federalismka ku jirnaa iyo Puntland sida Soomaalida lagu yaqaano dhaqan loo bartay maaha qofku deegaanka uu ka soo jeedo xumaan iyo samaanba inuu hor fadhiisto ayay Soomaalidu caan ku yihiin adigu waxaa tahay gabadh aqoon-yahanada faseegtay soo shaqaysay weliba ilaa heer caalami ka soo shaqaysay gobollada dalka oo dhan sidaad sheegtay Baydhabo iyo Garowe iyo Kismaayo iyo hawlo shaqo u tagtay beesha caalamka iyo dawladda federaalka u dhaxaysay eedayntaada durucdeeduna Puntland bay ku dhacaysaa maxaa kale faarinta
waxa igu kalifayaan idin sheegaya waxa weeye horta madaxweynaha Puntland iyo anigu Soomaali baynu nahay horta waa wada dhalanay markay noqoto dhalasho ahaan waan isu dhownahay xaqiiqadu waa taas oo horta maanta kursigii aniga hadday noqon lahayd Puntland inaan kursi ka doonto kursigii asaa ku fadhiyo imatalo horta horta xagga inaan dhigaan raba oo aniga Puntland kursi maanta kama heli karo ma garateen waa waxa qabiilkii waxa xaqiiqada Soomaaliya qabiil based weeyaan ma garateen marka aniga waxa iga hadalsiinayo waxa waaye had I have to ina aan fair ahaado waa in haddii aan ka dagaalamayo xumaanta aan gurigeyga ka bilaabo gurigeyga inaan saxo waayo kow Puntland waa meeshaan kasoo jeedo dadkii hore ii yaqaano way ogaansaan dawladda federaalka oo hore ula dagaalami jiray markaan khaladaadkeeda soo arkay markaan arko Puntland inay cross gareynayso wadada iyadana ay khaladaad aan la malaysan karin sameeynaysan waa inaan anigu ugu hormaro inaan jiraado ka joog ma sameyn kartaan marka Cabdiweli waa walaalkay waan isnaqaanaa dad waxaan aad isugu dhow laakiin absolutely wadooyinka uu sameynayo not only inay Puntland burburinayso Soomaaliya burburinaysa magac xumay noo soo jeedisa mas'uuliyadda marka iga saaran inaan ka hadlo maadaama aan dadkii aqoonta u lahaa wixiina ahay garanaayana wixii dhulkiina soo arkay mas'uuliyad ayaa isaaran si wanaagsan baan intaa u fahanay Safiya hadda si kale u dhigno waan fahanay taas oo halka ay ka yiraahdaan gaaladu tijaarada begin at home suuqmaasqa Soomaalida iyo maamulka madax ka noolka iyo baarlamaanka fadhiidka iyo waxa Soomaalidu way ka siman tahay marka allada Puntland baa burburinaysa federaalkii oo la rabay iyadu inay kantaroosho ama ay ilaaliso Cabdiweli si gaar ah aad moodo carabkeeda ugu adkeynayso Puntland laba saddex shay oo la taaban karo noo qodobayn karto oo aad qaadan weyday oo ku kalifay inaad sare u hadasho walaalo kow waxaan ku oranayaa 4.5 kii oo Cabdiweli been noo sheegay 4.5 kii wuxuu nagu yiri absolutely ma qaadanayo madaxumaba inuu qaatay oo waxa dhici karta inuu oran karo waa la igu khasbay oo maaragtay beesha caalamkaana khasabtay oo nabar shaqeysay laakiin dadkii inuu u soo noqday ahayd marka hore oo uu yiraahdo war waxani ma shaqeynayaan taladiina u baahanahay dadka lama tashan horta taas waxay kamid tahay waxyaabaha arrimaha federaalka kamid ahayd khaladku galay kow tan labaad hadda arrinta taagan dawladdan hadda jirta ee farmaajo waxa uu sameeyey waad xasuusataan dawladdu waxay qaadatay markii Middle Eastiga ama Khaliijka ay islaamku ka dhacay oo isqabsadeen ay laba group u kala baxeen dawladdeena federaalka way xisaabtantay oo waxay tiri dhaqan hore aan loo aqoonin ay keentay waxay tiri dhinacna ma raacayno dhexdhexaad baan ahaanayna ma garateen taas waa la wada ogyahay Soomaaliya oo dhan baa og dhexdhexaad baan ahaanayna dhinacna ma raacayno inkastoo ay xoogaa dadku ku carqaladeynayaan inay lahaayeen haddeedaan dhinac raacin khadar baa raacdeen taas runtii ma aha wax run ah waxay dhaheen anagu cidna ma culaadinayno imaaraadna waxaan la nahay maaragtay heshiis sacuudina heshiis qadarna heshiis cid walbana heshiis marka waxaan kuu sheegayaa arrintii saa ahayd oo dawladdii federaalka oo dalka mas-uulka ka ahayd markay go-aan gaartay oo ay dalkii mas-uul uga tahay go-aankaas cidda faruurka samaysay waa xaqiiqo oo waynu wada ognahay wuxuu ahaa Puntland isagaana hoggaanka ah Puntland marka ay rahdana dee shacabka mas-uulka ma aha waxa mas-uulka ah madaxweynaha meesha jooga shacabka waa la haystaa ma garanaysaa marka waxa weeye madaxweynihii ayaa waxa uu sameeyey faruur waxa uu dhaqaaqay sacuudigii uu aaday wuxuu jabiyey dawladdii federaalka ahayd go-aanka ay gaartay buu jabiyey taa maxay abuurtay waxay abuurtay chaos inuu bilowdo khalkhal siyaasadeed inay maamul goboleedyadii kalena ku daydaan oo ay dabagalaan waynu wada ognahay waa iyadii ay galmudug baxday waa iyadii south west baxday marka waxa weeyaan waad ujeedaa burburka dhacay halkaa waxaa kaloo tan saddexaad aan kusoo koobayo waxa waaye qaladka saddexaad shir ayay abaabuleen shirka Kismaayo oo hadda ugu dambeeyey maalinka hor soo dhamaaday shirka dastuurku wuxuu sheegayaa annaga kumaana arag dastuurka meel sheegaysa in maamul goboleed keligiis kulmi karo waxaa dastuurka ku qoran in wada tashi la geli karo oo ay dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah maamul goboleedyada ay wada tashadaan shirarka markay gelayaan oo xubno ay ka joogaan dhan walba waxaa caddayn aan u haynaa dawladda federaalkeed inayna ka qayb gelin shirka halkaan ahaa oo Kismaayo ka dhacay ma garanaysaa waxaa kaaga daran qodobada ay soo qorteen oo 16 qodob ah waxaa ku jira qodobo jabinaya dawladnimada
oo u ekaysiiyey dowladnimadii oo dhan in lagu noqday hogaamiye kooxeedyada xiliyadoodii lagu noqday waxa weeye go-aan bay iska gaareen qodobay soo saarteen waxay kaloo ku doodeen inay 90% dalka iyagu mas-uulka yihiin look at that mentalityga sheeganaya dalka annagaa ka mas-uula 90% waa hogaamiye kooxeed waxay xadkii ka baxeen fawday abuureen waxa weeyaan dowladda federaalka ahayd oo dhan bay dacfur ku noqonayaan waxaa kaloo iyadana ku hoos jirta arrintaas dhaqaale this whole thing is based on dhaqaale ay imaaraadku maaragtay fangareynayaan taas waa fact waan haynaa xaqiiqada caddaynta waan haynaa imaaraadka ayaa waxan oo dhan fangareynaya waxaan uga hadli doonaa marka arrinta imaaraadka aynan u gudbin safiya waa point la qaadan kara absolutely si waxbaan u fahanay dhegeystayaal nagala socotaan weli waa madasha 60 oo dhaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaalida waxaa caawa martina ugu ah Safiya Yaasiin Faarax oo aqoon-yahanad Soomaaliyeed oo degan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waa ariga Mareykanka Safiya point la qaadan karo weeye marka tiraahdo 4.5 oo shacabkii lagu la noqon waayay talo dawladdii oo go'aan ka qaadatay arrimaheedii dibadda oo warqad laga soo dhinac saaray shirdaceed dawladda aan waxba ka ogeyn oo la qabanayo arrimahaas oo dhan waa arrimo la taaban karo dadka reer Puntland markaad dhegeysato qaarkood waxay koran aqoon-yahana ayaa madaxweyne ka maamulka Puntland ceelal baa la samaynayaa jidad baa la samaynayaa dekedaa la samaynayaa dadka sidaa aaminsan maxaad ugu jawaabi lahayd walaa horta arrimuhu kala qaybsan yihiin horta qofka waxa uu sameeyo lagama xaqiri karo waxaan rabaa inaan caddeeyo madaxweynaha cabdiweli inkastoo ayaamahan guddoomiyaha oranayay oo aan diidanaa inaan madaxweyne dambe ugu yeero maamul goboleedyada waxaan caddeynayaa in horta wax uu qabtay anigu kama xaqiraayo wuxuu qabtay waxaa ka mid a aeroboortkii boosaaso oo uu dhamaystiray intuu joogay waxaa ka mid a aeroboortka garowe oo hadda gacantii lagu haayo oo aan rajeynayno inuu dhamaystirmo waxaa ka mid ah oo kaleeto jidad iyo waxaa inuu hagaajiyo sameeyey waxaasoo dhan abaalkeeda wuu leeyahay hawshaas inuu qabtay cidka inkari kartay cidka xaqiri kartay midna male laakiin maxaa meesha yaalla waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday markii uu dekadii boosaaso oo waa meeshii keliyaheed oo isha aheyd oo dhaqaalaha ahayd oo dalkii soomaaliya oo dhan xataa puntland keliya maaha dekada boosaaso intiina og waad ogtihiin waxaa laga dhisay dowladdan federaalka een haysano ee xamar joogta markii la bilaabayay 2006 iyo 2007 iyadaa laga biili jiray intiina og dowladnimada soomaaliya waxaa lagu soo celiyey dekedaa yartahay maskiinadaah boosaasaha meeshaa taalla baa lagu soo celiyey bilowgeedii waxaan kuu sheegayaa marka isha dhaqaale ay maanta puntland haystaan iyo weliba soomaaliya oo dhan meelaha ay uga soo degaan waxbay ka mid tahay maanta meesha ugu weyn waayo in maanta lagu wareejiyo waddan shisheeye yaa waddamadaaba kale ah carab oo aan ahayn dad dimuqraatig ah fiiri aniga meeshaan ka duulaayo waxa waaye waa dawlad aan dimuqraatig ahayn dawladda markayna dimuqraatig ahayn waxayna kala saaraya male ma garatay waa boqortooyo waxay rabaan ay sameeyaan dadkoodayna si sharciya ula dhaqmin marka horta sharciyadan kala saaraya ma laha 2 annaga waxaan nahay dawlad tabar yar ma garanaysaa oo weliba waxaan heshiiskan lama ayna gelinin dawladana federaalka waa ogahay inuu xasan sheekh iyo cumar cabdishiid u saxiixeen dekedaha berbere iyo boosaaso laakiin waa in la isweydiiyo sharci ma tahay sharci ma aha waxay ahayd baarlamaanka federaalka inuu approve gareeyo dad baa waxay ka hadlaan maalin walba turki dekeda turki baa loo dhiibay iyo airboortka turki baa loo dhiibay xamar ogow waxay uga duwan yihiin kuwa imaaraadka airboortka turkiga iyo dekeda loo dhiibay turkiga baarlamaanka federaalka ogolaaday oo la mariyay waa sida sharciga ah ma garatay laakiin dekedan berbera iyo saldhiga berbera iyo dekedan boosaaso waa bililoqo aniga waa oranaya waxa weeyaan xasan baa saxiixay iyo cumar cabdirashiid oo lacag doorasho raadinayay cabdiweli bay dil iskula galeen iyo groupka somaliland hadda haysto oo xisbiga kulmiye hogaaminaya iyagaa dil iskula galay ma garanaysaa lacag doon bayna ahaayeen shacabkii somaliland deganaa iyo shacabkii puntland deganaa iyo shacabka soomaaliyada guud waa la dulmiyey waxay si cad ugu xadgudbeen dastuurkii dalku lahaa somaliland hadday xataa yidhahdaan waa go-nay still soomaaliya kamid yihiin technically iyo sharciyan ma garatay baarlamaankaas federaalka dalka o dhan mas-uulka ah baarlamaanka federaalka hanti dal oo uuna bixinin cid bixin karta male marka fiiri
marka safi halka intaan ka gudbin xagga sharciga waynu aadi doonaa arrinka dekeda waxaa lagu sheegay investment ama maalgashi baa lagu sheegay muddo 3 sanadooda waxaa la sheegay in la gelinayo lacag 360 milyan oo dollarka Mareykanka qandaraasna ay ku qaadan doonaan shirkadaas DP World la yiraahdo oo imaaraadku ay leeyihiin haddii 360 milyan dalka la geliyo dekadiina la ballaariyo oo dekad laga dhigo caalami ah maxaa ku jaban waa maxay khataraha adiga ku muuqda dadka aan arkin walaalo khataraha ii muuqda waxaa kamid ah waa su'aal wanaagsan khataraha ii muuqda waxaa kamid ah horta termka ama timeline-ka ay siiyeen oo 30 sano waa khatar arrinta kale oo meesha ku jirta oo loo baahan yahay in si fiican Soomaalidu u fahanto waxa weeye imaaraad sababta ay anaga dalkeena almost $1 billion ugu bixinayaan ilaa hadda isku darsataan Somaliland iyo Puntland ay ku bixin doonaan waxay isku noqonaysaa almost 1 billion waa 800 million meelahaas noqonaysaa ma garatay waa in ay Soomaali isweydiiso why waxaa la xaqiijin karaa oo aad ogaataan meesha adduunka waxaa loo xisaabtamaa waxaa jira economic interest iyo waxaa jira political interest iyo waxaa jira maaragtay waxyaabahaasaa jira adduunka wax la dhaho economic developmentiga areada marka aad study garaynaysana waxaa la eegaa competitionska wax la dhaho competition yaa kugula jira hadda kaba soo qaad Dubai oo kale locationka ay ku taalo iyo anaga locationka aan ku naalo Soomaaliya waxa ay noo arkaan inaan ku nahay economic competition inuu naga dhaxeeyo ama tartan dhaqaale inuu naga dhaxeeyo xuduud nagama dhaxeeyo xuduud nagama dhaxeeyo dhuleed sida Ethiopia iyo Kenya oo kale laakiin waxaa naga dhaxeeya dhaqaale tartan dhaqaalaha naga dhaxeeya waayo locationka aan ku naala keenaya ma garatay especially Soomaaliya ka strategicsan oo ka dhul weyn oo ka badbalaaran marka imaaraadna waad ogtihiin oo waxa ay haystaan hal dekad oo Dubai World meel ay leeyihiin oo business hub u ah actually in the Middle East oo dhan iyaga xarun u ah ma garateen iyo xataa Africa looga distribute gareeya maaragtay businesska iyo trade-ka waxaas marka waxa khatar ay u arkaan haddii dekadaha Soomaaliya si xor ah annagu aan cidaan doono haddaan rabno Mareykan aan u yeerano haddaan rabno Ingiriis aan u yeerano cidaan doono hanoo investment hanoogu samayso ma garatay waxay ogaanayaan dad xore inaan nahay oo dhaqaalahoodii aan cariiri gelinaynaa waxaan awood u yeelan doonaa in ay ka soo wareegaan businessyada iyo trade-ka ilaa annaga strategically meeshaan ku waxay doonayaan halkii dekadahan ay halis gelin lahaayeen dekadahooda inay cudhaal u haystaan iyagu 3 sanadood bay doonayaan and by the way ogaada Boosaaso iyo Berbera kaliya ma aha waxa iyadana ku soo jirta pipeline-ka waxa ku soo jirta iyadana wadada Baraawe iyo maxaa la Kismaayo waxaad ogaataan heshiiska markaas ayaa ka gooyay heshiiska DP World iyo ay galeen Puntland for example Somaliland way la gashay waa run qaar kalena waa adigan le iyaguna wadada soo haya okay let's say Puntland heshiiska ay wada galeen iyo DP World maaragtay adigu heshiiska rasmiga ahaa ay wada galeen walaal aniga waxaan arkay in Soomaaliga kii lagu turjumay mid la igu yeeyo Soomaaliga heshiiskii because aniga xagga ma joogo garo Puntland ma joogo moogta documentigiina waana la ka dhaariyay in la soo subaayay way waxaan kala rabaa inaan ku daro waxyaabaha aan uga soo horjeedo heshiiska waa dhowr sababood sabab waa midda timeline-ka oo 30 sano ah absolutely waa ka soo horjeeda second issue waxa weeyaan walaalo shaki waxaa jira ah oo naloo sheegay waxaa jira in Ethiopia laga siiyay sheekh dekada waad ogtihiin in already maaragtay Berbera laga siiyay 9% waad ogtihiin oo ay Dubai World siisay Puntland waxaa naloo sheegay in share laga siiyay absolutely documentiga dad aqoon-yahana ma arkin runta idin sheegay of course Cabdiwali aqoon-yahan waa madaxweynaha Puntland xaggana wixii dawladda waxaa haystay meediyaha ama saxaafadda Soomaalida markaad eegto sida social media iyo website-dada iyo telefishinada iyo mitiga imika sheegaysa Soomaaliga ku qoran oo aad moodo draft cidii ma garanaysaa marka ay soo curisay laakiin documentkii rasmiga ah DP World iyo Puntland ay wada galeen oo la kala saxeexday way banaanka loo soo dhigi ilaayahay waa maxay waxa yani adiga lama arkin baarlamaankii Puntland lama horgeeyno ka Soomaaliga baa loo geeyay waa maxay waxa lagu qarnaya walaalo waxa shakiga abuuray kamid tahay fiiri waxa hadii hogaanka Puntland hadii una dhibaato iyo carqalad wadinin wuxuu noqon lahaa transparent wuxuu noqon lahaa wax kasta miisku soo dhigi lahaa micnihi ma ka wadno
millions and millionska adduunka ku nool ha loo soo publish gareeyo kama wadno laakiin dadka aqoon-yahanka dadka maxay ahayday dalka ka naxaaya oo garanaya wixii engineers in la tuso dad lawyers in la tuso wixii la fiiriyo madaxweynuhu hawshaa ka badatay documenti intaasoo beja ma akrin kara keligiis ma garatay dad aqoon-yahanana lama joogaan oo u akrin kara documentigii oo waxaan ka warqabnaa cidda la shaqaysa madaxweynaha dad aqoon-yahana lama joogaan ma garanaysaa waan garanaynaa dadka uu shaqaalaysiistay iyo waxa ag jooga ma garanaysaa waxa weeyaan madaxweynuhu wuxuu ka dhowray wuxuu ka ilaashay dadkii in la tuso documentigii halkaa shaki weynaa ka dhashay waxaa kaloo suuqa soo gashay in Ethiopia ay share ku leedahay waad ogtahay arrintaas sensitivitygeeda waad garan kartaa Soomaali ma yeelayso dal dekedeeda in la siiyo Ethiopian Somaliland waxaa la yidhi ama ay soo baxday officially in 19 ama 19% ay ku leedahay dekeda Berbera taboosaaso intee ku leedahay baa la yidhi Safiyay walaalo 20 meeyo nolol sheeg waaba ka badan 20 meeyo nolol sheeg laakiin fiiri ilaa hadda documentiga wuu naga ilaaliya Cabdiweli dadka aqoon-yahanka ahaa Puntland cid aragtay documentiga male qof kasta marka aragtidaada sida dad badan ay qabaan oo kale iyaguna of course sababta loo qarinayaa documentskan rasmiga ahi in shirka Ethiopia labatariyada kasoo dhex baxo baadna maadaama Soomaaliya xasaasi ay ku yihiin Ethiopia halka qayla ka dhalata absolutely that is what I think aniga kulli saasa conclusion kan iyo dad badan anagoo ah oo dadka ka soo jeeda dhulkaas oo dadkii aqoonta lahaa waxay yiraahdeen waxa uu Cabdiweli u diiday documentiga inuu dadka tuso annaga malihin suuqa soo dhig website-ka internetka soo dhig malihin laakiin dadka aqoonta lahaa wuxuu uga ilaaliyo documentigii arrintaasaa ku jirta laakiin waxaa nasiib wanaaga ma taqaanaa Ethiopia way sheegi iyo Dubai World marka dekeda lala wareega maaragtay soo laguma wareejinin ya sidii waxay u publish gareyn doonaan maxay ahayd waa la ogaan doonaa laakiin waxaan ku xaqiijinayaa marka Soomaali ma yeeli doonto waliba Puntland Somaliland hadda xoogaa waxa ay maaragtay ay dadkaasi dad badan aa diidan dad Somaliland u dhasho badan aa diidan dekeda in la qaato xataa Berber mudaharaadiya ka dhacay laakiin waxa dhibaatada haysta waxay tahay wadankii ka go'an yihiin xoogaa Soomaaliland waxay sheegayaan walaw aanay war officially soo baxay ahayn wararka la dhex marayo dekeda boosaaso Ethiopiaanku 27% bay leeyihiin ma maqashay warka adigu yes waan maqlay walaalo waxaan ku sheegayaa annaga waxa khalkhalkana galiya aniga ma seexan maalintii aan arkay publicationka Dubai World oo 19% markaan arkay maalintaasaa shock uu dhacay waxa iri boosaasana waa garanti inay ku jirto Cabdiweli wuxuu ku dadaalay documentiga inuu dad tusin qof kasta waan weydiinay dadkii localka jooga waan weydiinay Puntland ka naxay iyo dadka aqoon-yahanka dadkii dibadda jooga waan weydiinay Cabdiweli wuu ka ilaaliyay documentigaas inuu dad tuso baarlamaanka ku tahay arrimihii dekeda markii dhinac kale laga eego baarlamaanka ku tidaahdee Cabdiweli halkan aad u soo saaraysa arrinka oo dhan dadka qaar ba waxay leeyihiin Cabdiweli isagu waa kind of coordinator oo kale Puntland iyo brokers laakiin masterminds baa jira hawlahan soo dhameeyo dabada ka riixay waxaan shaqadooda ay tahay noocaas ma qabtaa adigu dadka ma jiraan kale oo arrinta kula jira Cabdiweli aad noo tibaaxi karaysa walaalo horta sheeko waxaa jirta suuqa aan qarsoonayn oo sir ahayn sawiradii gabar waxaa jirta kamid ahayd dadkii waxaan ka shaqeynaa iyadana ma garatay gabar baa jirta waxaa jira gurubyo badan ma garatay gurubyo ninka wasiirka dekedaha ahaa kamid ah oo kula jira barnaamijkan waxaa kaloo kamid ah gurubyo badanaa jira adiga la ii sheegay hadda ma rabo magacyadooda inaan sheego laakiin kulley waxaa sawirada ku jira oo dadka dhan wada ogyihiin waa wasiirka dekedaha Siciid Maxamed Raage iyo gabadhan ii sheeg reer Canada inay tahay umaleynaa mise Dubai hadda degan tahay iyadana gabadhaasna way ku jirtaa waxa oo dulaalada kamid ah dadka dulaalada ah ma garatay marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed waa inay ogaadaan dekeda boosaaso Puntland ma laha kaliya ummadda Soomaaliyeed iskale ma garateen waa in aad feejignaataan oo aad tiraahdaan waa inaad question gareysaan si hantidiina banaanka looga qaadana and by the way inta aanan ka bixin waxaan rabaa oo kale inaan ku daro imaaraadku waxa ay dalkeena u qabanayaan dalkeena Ethiopiaanka iyagaa siiyey 19% Berbera iyagaa siiyey ogow imaaraadkaa siiyey of course Somaliland way u saxiixeen way loo waxaan baan u garanay taas arrinka kale oo dadku ay isla dhex marayaan iyadana I don't know inaad xog hayso dheeraad iyo kale qaar waxay leeyihiin Cabdiweli iyo arrimaha iyaga laftooda waa la gelinsiiyey dekedan waxaa hore u soo dhameysay
madaxdii hore ee dawladdii federaalka ahayd ee xilligeedii u dhamaaday sida mudane cumar cabdirashiid oo kale marka ma haysaa isaga walaal cumar cabdirashiid wuu kula jiraa of course cumar cabdirashiid iyo xasan sheekh waa dee theory you have to know project intaa laeg waddanka soomaaliya marka la gelinayo noocii doontaba ha ahaatee waa in saxiix laga haysto madaxweynaha iyo prime ministerka hadduu rabo madaxweynaha wuxuu oranaya adiga prime minister oo saxiix ama madaxweynaha saxiixay laakiin labadooda midkood iyagoo isla og wixii in saxiix laga hayo waa by the way you have like dalka saasuu u shaqeeyaa marka nasiib darrada nagu dhacdaa waxay tahay xasan iyo cumar oo doorasho gelayaa saxiixay dekadaha tan berbere xataa iyagaa saxiixay ma garata iyo saldhigaba waxaasoo dhan it was based waxay raadinayeen lacagay raadinayeen iyaga interestka dalka iyo dadka midna kamayna fikerin marka aad kusoo dhex tuurtay social mediaha in cumar cabdirashiid masterman uu ahaa markii hore in imaaraadkuna isaga ay usgaraynayaan as a journal in isagu uu yahay ka imika isugu yeedhay oo qabtay shirkan kismaayo in cabdiweli gudaha uga shaqaynayo xog dheeraada ma naga siin karta arrinka walaal arrintaas waa arrimaha soo bixi doona laakiin aniga kulli waa waxyaabo hoose si hoose la iigu sheegay ma qarsoona cumar in ay haayargareeyeen imaaraadku waxay u haayargareysteen as an advisor we know advisor means dulaal waay ma garateen dalka soomaaliya advisor ay uga dhigteen isagoo by the way waxa weeyaan sharci darro nin aqalkii sare ku jira ee soomaaliya in uu dal kale u noqdo agent I don't understand baarlamaanka sababta in arrintaa uga hadlin weli ma garanaysaa marka cumar waa ninka waxaanoo dhan mastermindka yes I don't know inuu isaga xasan xataa u keeno waa dhici kartaa ma garatay laakiin kulle cumar waa mastermindka barnaamijkan ninka hadda dadka ku shiriya imaaraadka waa cumar ma garatay ninka gaas geliyey hawshan waa asaga waa run ma garatay ninka gaas u dooda arrimahan Puntland sida cabdiweli iyo xukuumaddiisa iyo arrimaha ay qabanayso la dhacsan waxay yidhahdaan mararka qaar maadaama deeqihii caalamku ay bixinayeen ama ha ahaato waxbarasho military dib u dhis waxay ha ahaato xamar bay ku bururaan waxaana isku koos dowladda federaalka maxaa markaa diidaya yidhahay maamul goboleedkuna inay iyagu qalaab tagaan waa sida iyagu sheegeen oo iyaguna ay meelahooda gargaraacdaan walaalo taa waxaan uga qancinayaa ummadda soomaaliyeed ee la marin habaabinaayo anaa waxaan kasoo shaqeynaya xamar oo ku dhex jiray barnaamijka aidka barnaamijka new dealka oo soomaaliya loogu qabanayo hawlaha oo wax loogu sameynayo anaa ka shaqeynaya ma garatay anaa kasoo jeeda puntland ma garanaysaa waxaan markhaati ka ahaa in shirarka iyo wax walba loo qaban jiray wax xamar gooni u aadi jiray hadda anigu ma controli karo kama hadli karo wax xasan heshiise uu gooni u galay ama maaragtay qof individual heshiise ama ganacsato gooniya waxay heshiise gooni usoo galeen taa anaga ma controli karno ma garatay laakiin wax channelka dawladda ku yimid wax channelka dawladda kusoo galay dhaqaalaha dalka oo maamul goboleeda laga hakarada ma jiro by the way hadda sheeko ma aqaan inaa maqasheen wasaaradda maaliyadda federaalka inay ka joojisay lacaga funding ahoo bil kasta la siin jiray ma aqaan 150,000 maa la yiri I think reportka waan arag amaal dhawada arkay wax 150,000 kun waxaa la ogaaday inay nimanka maamul goboleeda shafka isaga shuftaan oo ayna waxba ku qabanin markii la yiri noo sheega waxa ku qabateen wax ay keenaan waayeen lacagta marka hooda laga geliyo waa inaa fahantaan ay Soomaali fahanto buuqaan hadda ay bilaabeen nimanka maamul goboleedada iyo orodka ay imaaraadka aadayaan way kamid tahay marka waxaan kuu sheegaa waxa ay dadku la wareegayaan horta hal arrin ay dood badan ka keenaan aan rabaa caawa inaan ka leergareeyo arrinta Turkiga fiiri waxay ku leeyihiin aidkii oo dhan iyo wax kasta wadankii waxay aadaan xamar horta xamar waa caasimadii Soomaaliya ya adduunka sida u shaqeeyana badanaa caasimaday tagaan oo wax ceeba male waxaan kaloo rabaa inaan ku daro arrinta Turkiga markii hore caawimada waxay u yimaadeen abaarta oo dhulka koonfurta ka dhacay berigii ay imaanayeen 2011 markii dambena developmentii u wareegeeno waxay ka bilaabeen Muqdisho waxay damceen inay Puntland tagaan anaa og inay Puntland damceen inay tagaan 2012 iyo 2013 waxaa lagu yiri waxaadna siisaan lacagta anaga noo dhiiba projectida anaga sameynayna Puntland ku yiraahdeen Turkigu dhaqankiisa saa ma aha waxaan rabaa inaan Soomaalida fahansiiyo Turkiga xamar anaa kasoo shaqeeyay waa weydiin kartaan dadka Soomaaliya xamar ka shaqeynaya Turkigu bashaariicda iyaga gacantooda ku qabta laamiyada iyaga gacantooda ku dhisa mashiinada iyaga wata oo laamiyada Muqdisho dhisa ma garanaysaa dadka ay hayr gareysanayaan intii doonaan ay hayr gareysan laakiin waxa manage gareeyo oo dhaqaalaha gacanta ku haya oo hawsha qabta waa Turkiga laftirkiisa oo ka yimid dalkooda
puntland markii la dancay in loo tago turkiga cala shadiiq gacanta lacag uma saaraane iyaga wixii qabtaa iyaga gaarsiiyaalka loo tago fiican puntland marka tii bay diiday marka lagu leeyahay ay doodayaan ay leeyihin turki annaga muxuu noo keenaa turki iyagaa hadda ka hor diiday ya okay marka dhegeystayaasha naga socotaan weli waa madasha 60 oo dhaxwa lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaalida waxaan horeba idinku sheegnay caawa martii noogu Marwo Safiya Yaasiin Faarax oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota cariga Mareykanka Safiya gabagabadii barnaamijka ku sii dhownahay waxaan ku dhex jirnaa weli arrimihii dekedaha siiba dekeda Boosaaso waxaa soo baxday dhawaanahan arrin dadka qaar badan confusion ku siday ama isku dhex yaac badan oo ka dhashay shirkad la yiraahdo BO ee dekeda Boosaaso la yiri way la wareegaysaa iyo DB Wall maxay kala yihiin labadan midba ma kala laba wax iska saaran oo weli qaar kamid ah la ogaanba arrinka maxaa laga sheegi kartaa xog walaalow arrintaas aniga xog badan kama hayo runta ma kan sheego annaga waxaan loo ku sheekeeyay DB World oo shirkadan caalamiga oo adduunka xataa Europe wadamo kamid ah ay maaragtay dekadooda ay manage gareysaa shirkadaas annagana loo ku sheekeeyay maadaama marka documentiga aanan arkin alla documentiga Soomaaliga aan arkay waxa ku qoran subcontracted hay'ad inay taan u maleynaayo laakiin I don't know history hay'adda ma garatay hay'ad macni waxaan ka wadaa shirkad kale aan ka wadaa hay'adii aan oranay shirkad kale shirkad kale oo qandaraas hoose CC qandaraas hoose subcontract contract iyo subcontract ay kala tahay mogta qandaraas si hooseeya ee noqonaysa Soomaaliga qandaraas hoose qandaraaskii kore ma aha shirkad kale CCN qandaraas labaad marka annaga inta barnaamijka gabagabadiisana waan ku dhownahay waxa weeye waxaa jirta Puntland imika Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa madaxweyne ka xilli doorashadiina way soo dhowdahay oo waxa uu haray waa sanad iyo waxaan dhaamin ayuu baa haray dadka qaar waxay leeyihiin musharax uu noqon doonaa qaar waxay leeyihiin Umar Cabdirashiid baa sanadka sharaxan oo arrinku si kale u shaqeeya xog maxaa ka haysaa arrinta iyada walaalo horta Puntland waxay horta qof walba soo sharxi kara sharciyan ma garatay oo sharciyan cid ka hor istaagaysa qof walba waa sharxi kara oo dhulkaas maaragtay ka soo jeeda waxa weeye Cabdiweli kolley waa hore wuxuu sheegay mar uu shir gaalkacay uu joogay wuxuu ka hadlay inuuna isharxi doonin laakiin aniga kolley shaki ay iga jira arrintaas waxaan u badinayaa inuu isharxi doono ma garatay ragga kalena Umar Cabdirashiidna most likely isagana sidoo kale marka dadkana way iswada sharxi doonaan laakiin su-aasha waxa weeye yaa la dooranayaa dadku waa soo jeedaan baarlamaankii wuxuu noqday wax lacag la siiyo oo ceebtii adduunkii fadeexadda adduunka dhigeen sanadkan baarlamaanka jooga ma garatay marka Puntland waxaan rajaynayaa shacabkeeda inay soo jeestaan oo ay xildhibaano damiir leh oo sharaf leh ay doortaan tookadan markay doortaan madax sharaf leh oo aan musuqmaasuq ku dhaqmin oo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed kaliya ma aha Puntland danteeda danta ummadda Soomaaliyeedna ilaalinaya la dooran karaa marka hadda xaaladda lagu jiro xaalad aad u foolxun waay runtii dhulkii oo dhan wuxuu noqday musuqmaasuq wax alla wixii la doonaa la sameynaya checks and balances iyo governance system ma jiro iyo dowladnimo ma jirto Cabdullaahi meesha wuxuu raba ka samaysta baarlamaankiina boorsadu ku wataa marka waxaan kuu sheegayaa meesha hadda Puntland shacabkeedu waa dad aad u nabad jecel iyo aad u dowladnimo jecel oo u dulqaadsan marka ayagaa weli waa madasha 60 oo lagu falqiyo siyaasadaha Soomaalida saan horeba idinku sheegnay caawa waxaa martina ugu aqoon-yahan Safiya Yaasiin Faarax oo aqoon-yahanada Soomaaliyeed Safiya ku weydiiyay su'aal shakhsiya sida xogta ay ugu soo gaadhay adiga iyo Cabdiweli oo madaxweynaha Puntland iminka ka hor waxaad ka wada tirsanaydeen ururka la yiraahdo Puntland Forum xilliyadii ololaha doorashadana aad baan isugu dhaweeyeen halkay salaadu iska dhaaftay walaalo horta Cabdiweli waa walaalkay sida aan hore ugu bilaabay hadalka waa isu dhownahay dhalasho ahaan aad baan isugu dhownahay waxaan ku wada jiri jirnay intuuna siyaasadda gelin Puntland Diaspora Forum baan ku wada jiri jirnay isaga wuxuu ahaa liidaradeenu kamid ahaa anigana boardkan ku jiray executive boardkan ku jiray walaalkii waa wada shaqayn jirnay waxaan u ahaa gacan yaro oo kale ma garatay aad baan isugu dhaweyn marka waxaan kuu sheegayaa siyaasadda doorashada markuu gelay anigu uma campaign garayn
haddii waxaa laga yaabaa si khaldan in lagu sheegay anigu doorashada hadda puntlandna uma campaign garayn tii prime ministerka soomaaliya markuu noqonayay oo prime ministerka intuuna noqonin maaragtay uu noqday farmaajo u noqday wasiirka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka markuu u noqday markaa waan isku dhaweyn oo maxay ahayd de BDF-kii markaa ka tegay moogtahay anigu waxaan kamid ahaa dadkii jeclaystay inuu prime ministerna noqdo oo dadkii la jeclaystay oo dad badan oo ehelka iyo kuwa badan oo isla sharaxayay isaga aan ka dhaadhicinay ku daaya cabdulla meesha ku jiray asagoo ha gale ma garatay ilaan rag kalaa challenge garayn lahaa marka dadkii waxaan kamid ahaa ka shaqeeyay in loo daayo isaga maadaama uu meesha ku dhex jiro laakiin anigu campaignkiisa kama qayb gelin madaxweynaha markuu xamar iska sharaxayay campaignkiisana kama qayb gelin maxay ahayday puntland oo aniga wada shaqayn jirnay oo forumkaan ku wada jirnay nin waxaan aqoonyahan oo hogaan oo abuhaa laakiin markii dambe siyaasadda galay ama madaxweynaha puntland ka noqday arrinkiisa isbedelka keenay miya walaal weliba markuu prime ministerka ahaa ayaa arrinkiisu isbedelay oo khaladaad badan oo dhacay waxyaabo badan talooyin badan fiiri talooyin badanaa la siiyey dhaqankan hadda uu leeyahay oo aan ka qaylinayno xilligii aniga sababta aanan u taageerinay ahayd doorashadii madaxweynaha puntland iyo doorashadii soomaaliya labadaba midna ma taageerin xilliga uu prime ministerka ahaaba qofka waa la eegaa moogtaha xilliga shaqada loo dhiibo siduu u dhaqmaad ku qiyaasaysaa moogtaha hadhow qofku wuxuu yahay marka anigu runtii sidaa isugu dhaweyn xilligu prime ministerka ahaa buu khaladaad badan iyo dadku maqli waaye taladii uu maqli waayey ummadii talada ka maqli waayey aniga marka xoogaa waxaan galay shakiya iga galay in lagu aamini karo puntland marka saasaana puntland ku taageerin dadku siday ka wada warqabaan anigu farolaan taageeraya facebookaygii meel walba ku jirta ma qarsoonayn sirna ma ahayn farolaan taageeraya laakiin hadalkan aad tidhi Safiya go ahead kasoco walaalkii aniga laakiin we're always close aan nahay xataa 4.5 markaan campaign ka shaqeynay hadda on saas ula hadlaayo saas hadda ula dagaalayo oo qaarta ugu wato annaga cadow isuma nihin ma garatay inta aadan marka sheekada banaanka usoo saarin ama meediyaha sidan caawa kale aanad u bandhigin maadaama aad soo wada shaqayseen maadaama saa sheegtay close family tihiin maadaama madaxweyne puntland uu yahay access badan baad heli kartaa saan tuhunsanahay si hoose marna ma ku dadina waxu sheegtay sanado walaalo cadayna haya emailada haya sanado aan la hadlayo sanado ani keligay ma aha ummadoo dhan aan la hadlaysay oo dhahaysa waxaa naga daa waxaa naga jooji dalka sida u dhaan talooyin la siinayo dadka tala kama qaato wareyso dadka tala kama qaato kacdoonka marka arrinkan aad ku magac dartay aad tiri kacdoon baraarujin weeye oo shacabka lagu baraarujinayo kacdoonka ayaa kugula jira adiga kelibaa ku tahay mise waxaa team baa jira arrinkan wada oo dadka baraarujinaya oo sidii looga hortegi lahaa dekedaha la iibinayo iyo burburka ku socda puntland iyo arrimaha kan kelibaa ku tahay mise ciddaa kugu welisa walaal horta hawshan waa dad badanaa ka hadlaaya haddaad fiirisaan mediada iyo social mediada haddaad aragteen dad badan horta barnaamijkan dekedaha iyo in laga soo horjeesta dhowr biloodaan waday hadda ma garatay inkastoonan kacdoon shacab aanan ku magacaabin laakiin waan waday muddo ma garatay dekeda berbere markay bilaabataan kasoo bilaabay marka shacab badan baa hadda raacay oo shacab badan baa soo jeesta oo waad garan kartaa inta sida u qaylinayeen dadkao dhan puntland dhexdeeda waxaa kacay shacab badan baa kacay groupyo waxaa jira xataa is organize garay oo madashii isugu yeera oo hadda marka annagoo dhan hadda waxaan rabnaa inaan si fiican solid inaan u noqono oo isku xiran oo organized ah kacdoonka shacabkana dekedaha keliya ma ahane waxaan rabnaa dalkeena sida lagu jiro in laga gudbo dalkeena waxaan u baahannahay horumar u baahan yahay sida hadda lagu jiro oo maaragtay kala faquuqa iyo federaalkii sida khaldan loo isticmaalayo federaalkii lagu qaraabasho noqday yaa wax la qaadan kara ma aha marka annaga qof walba gurigiisa inuu ka bilaabo waayo kan galmudug kasoo jeedo inuu galmudug ka bilaabo waayo oon tiim noqono anigoo kaleo hadda puntland saas tacalada u haysta waa inaan maaragtay aniga gurigeyga ka bilaabaa kan ismaaciil kasoo jeediyo jubbaland saas oo kale waxaan rabnaa alreadyna groupyaa jira waan isku xirannahay waan soo warqabnay okay marka kacdoonku Safiya dadka qaar baa u arki kara maadaama election seasonkii uu soo dhow yahay ama xilligii doorashadu in kacdoonku la jaan qaadayo arrimaha doorashada ma ka madax banaan yahay olole doorasho walaal horta qof hata anaga candidate oo aan magacaabanay ma jiro ma garatay arrintaas ma fakerin ba laakiin waxaan kuu sheegaya haddii kacdoonkeenu isbedel keenaayo oo qof aan ku kalsoonahay aan ku helayno oo dalka hogaamiya puntland hogaamiya ya oo dalka soomaaliya dawladdana la shaqayn kara conditionka waxa waaye inuu dawladdana la shaqayn karo ouna caqabad ku noqonaynin
puntland hagaajinayo why not it's okay laakiin kacdo hagaag safiya ugu dambeyntii overall marka waraysiga oo dhacdeegto dawladda federaalka ee Soomaaliya ee imika jirta waxa ka muuqata inaad aad ugu qanacsan tahay somehow in laba shaqeeyana aad jeclaysato si wax u wadaana يعني ما وراك تاجر أنت لكن عرفت أنا حكيت لما الدولة إلى عاد وقص حسن تهاي ما وإحنا ترجع عرفوا الدولة ده حاجة إذا كوتشي دي بس السوداء هاي الدولة ده اللي كعصبة سنة كثير هاي شيء هو لعب بتفوق حسن تهاي تعال كلامك كسر ولا له هذا واحد يقولني هذا بتران أو أنا الدولة ده معرفة وما الشقاية شقنا هذا يمد يعرفنا أو واحد قرشة أنا مجرو يوح بلنا وأنا قد حاجة لكن واحد روا أنا حقيقيه dawladii hore ayaan halkan soo galay in isbedel yimaado ma garatay dadka iyo qaano dhan way og yihiin xasan iyo cumar taan ku dhigay ilaaha ogaa ma garatay campaign kan ku qaadnay anagoo badan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ba campaign ku qaaday marka waxaan ku sheegayaa dawladdu khaladaad way galaysaa dawladdan hadda cusub oo farmaajo iyo khayr ma ku oran karo khalad ma ay gelin of course waa dawladdu wax laakiin khaladaadka kala ah khaladaad waxaa jira burbur keenaya iyo kala daadasho iyo waxyaabo yar oo minor ah aan u baahnay in la bombooniyo ma garatay mar walba way jiraysaa dhaliil mar walba dhaliil way jiraysaa malaa'ig ma aha waxa la isbedelkii waqtiga badan iyo energy badan iga lumay dooni maayeen ciyaar ciid loogu daro may waxa ay wada waxa weey oo u ilaashanayo waliba oon aniga aan ugu horeeyo dadka waxaan ogahay halkan soo galnay ma garatay in dalkan dawladda horumar samayn karta oo musuqmaasuqa la dagaalanta oo adiga isbedel u keenta ambaayada way realistic ahay dalkeena wuu burburay ma filaayo expectationkayga iyo rajadayda cirka ma geynayo waayo waxaan ogahay unrealistic inay noqonayso wax aan wax inaan laabteeda aad u kiciyo ma aha waa inaan realistic noqdaa oo wixii aan fiiriyaan iraada what hadda waxaan ku leeyahay waa dawladda khaladaadka ay galayso in la bombooniyo ma aha waayo waa dawlad curdana dad badan oo waxa ku jira cusub waxa loo baahan yahay chance in la siiyo khaladaadka kala ah marka waxaan rabaa inaan tartiibsado waxyaabo badan oo aan jeclaysan waan arkay xataa golaha wasiirada markii la magacaabay waan sheegay hadda kor video waan ka hadlay markii ay diidayeen baarlamaanka aan la wargudbiya wax walba aan rabno ma helayno ma garatay marka 100% laakiin walaal dawladnimada wax walba ka muhiimsan dalka inuu dhismaan rabna qof walba sidoo raba lama helaayo lama helaayo leesalama wada helaayo ma garatay waa in compromise okay waa hagaag safiya waxaynu ku shaqeynaa barnaamijka gabagabadiisa ugu dambeyntii dadyo Soomaaliyeed oo kumanaara ma ku dhageysanaya imika si toos ku dhageysanayay 45 daqiiqo la soo dhaafay wax badan oo ka hadashay fariinta aad gudbinaysaa caawi ku gaarkay waa maxay ama guud ahaan Soomaalida ama gaar ahaan dadka reer Puntland fariinta aad hawada u marinaysaa ee doonaysaa inay gaadhaan waa maxay kala soo koobay walaal horta waxaan ugu horumarinayaa ummadda Puntland dadkaas deegaankaas degan waxaan kula talinayaa madaxweynaha ama gudoomiyaha oranaya asay kaligiisna gudoomiyaha ma orana maamul goboleedyada dhan waay wax personal ma aha asay kaligiisa waxaan leeyahay walaalow dalkan sida u dhaan waad aragtaa khaladaadka badanaa gasheen dhowrka bilood oo la soo dhaafay haddaad tihiin hoggaanka Puntland hadday noqon lahayd musuqmaasuqii iyo baarlamaanka la siiyey oo publica ahaa oo ceebtii fadeexadii ka dhacday hadday ahaan lahayd furuurkii dawladda federaalka aad ku samaysay oo aad go-aan keligaa iska qaadato iska baxday oo sacuudiga aaday hadday noqon lahayd shirkan aad u yeerteen oo kismaayo oo furuurka dawladda ku ah walaalow waxaan kaa codsanaynaa madaxweynaha ama gudoomiyaha Puntland waxaan ka codsanaynaa in uu ka daayo dalka furuurka iyo dhibaatada dalka waa fragile dadku waa dhibaataysan yihiin niyadjabka ka daa dalka waayo Puntland waxaa lagu yaqaanay ay sheegi jirtay 19 sano inay ka shaqeynaysay dawlad Soomaaliya oo in la helo dawladnimo Soomaaliya way dadaaleen soo dhisideedii xoog badan ay soo galiyeen effort badan la soo galiyay maanta meeshii ugu wanaagsaneed dawladda maraysa federaalka ahayd Puntland inay noqoto meeshii magac xumada ay raaci lahayd oo la oran lahaa lagu level gareyn lahaa ama lagu dhashin lahaa iyada dumisay qarannimada Soomaaliya runtii Cabdiwali oo ka fiirso Cabdiwali meelaha aan ka hadlayno dhageyso anigu had boqolaal goor aan hoos kula hadlay haddana public ayaan bilaabay waan ogtahay inaan public la hadlayo waxa weeyaan walaalow ka daa dalka iyo dhibaataynta ka daa dadka Puntland iyo dadka Soomaaliyeed magac xumada daa waxaan kaloo oranayaa shacabka Puntland doorashada soo socota in ay ku dadaalaan xildhibaano la soo xulay oo aqoon leh
dad sharaf ku dhexlehna bulshada ah oo aan musuqmaasuq lagu aqoonin inay soo xushaan 66 qof oo lasoo xuli doono waana ka shaqayn doonaa arrintaas insha allah waxaan kaloo oranayaa baarlamaanka puntland oo hadda ka horna waa idinla hadlay markii aad fadeexadu ay dhacday waxaan idin oranayaa inaad dib isugu noqotaan aad la xisaabtantaan dawladda puntland taasaan ugu gudbaya ummadda soomaali waxaa ku xigta dawladda federaalka waxaan ka rajaynayaa waa ognahay khaladaad badan in laga galay bilihii lasoo dhaafay oo ay maamul goboleedyadii xoogaa weecanayaan oo sidii laga rabay ayna ahayn laakiin dulqaad waaridka iyo caruurta waaridkaa dul badan oo dulqaad badan marka dawladda federaalka waxaa laga rajaynayaa inay waayeeleyso waan ku mahadsan yahay madaxweynaha sida uu u hadlay markii hadda inkastoo annaga shacabkii anigu aad baan u dagaalamayo oon u caraysnaa laakiin hogaankii dalka madaxweynihii waxa uu si positive ula hadlay maamul goboleedyada hogaankooda wuxuu ku yidhi wixii problem oo jira waa xalinayna aan isu imaano marka waa arrin fiican waa leadership wanaagsan waayo waa uga mahadcelinaynaa waxaan laakiin rabaa in ay waayeeleeyaan dawladda federaalka inay u waayeeleeyaan inay maaragtay maamul goboleedyada soo dhaweeyaan shacabka soomaaliyeed ay ugu dambaysa shacabka soomaaliyeed waxaan aad iyo aad rabaa inaan ugu bogaadiyo sida ay u soo jeedaan ay u baraarugsan yihiin ya waxaa laydinka rabaa baraarugsanaan ka badan intaas dalkeenna inaan hanano dalkeenna inaan xaraajka haddii boosaaso iyo berbere la xaraashay ogaada deked kastaa loo soo socdaa dalkeenna in la baxshaal rabaa dalkeenna in la qaybshaal rabaa dalkeenna amxaaraa la siinaya waan ku celceliyaa hadalkaas dalkeenna amxaaraa la siinaya soomaaliyay ku baraaruga hadalkayga ha yaraysanina akriya waxa socda akriya marka intaasaan kusoo gabagabeynaya walaalayaal aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegeystayaal halkaad nagala socoteen waxay ahayd mudasha 60 oo dhexmar lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaana caawa inoogu casunaa marwo safiya yaasiin faarax oo ah aqoon-yahanad soomaaliyeed oo ku nool waddanka maraykanka oo khadka telefoonka aana ku tiigsanay iyadoo joogta magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa waraysiga idiin qaadaya anigoo ah farxaan axmed nuur inta waraysigan mid lamid a aan dib u kulmi doono inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo 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 dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo